ciid wanaagsan ciid mubaarak meel kastoo dunida ka joogtaanba ku soo dhawaada xarunta telefishinka BBC ee London wararkaanu caawa idin hayno waxa kamid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaatay natiijada doorashadii madaxweynaha ee halkaasi ka dhacday dhawaan waxaanay amartay in dib loogu celiyo 2 bilood gudahood doorashada Raila Odinga musharaxa mucaaradka ayaa ku baaqay in gudida doorashooyinka xabsiga lagu guro iyadoo maanta guud ahaan dunida muslimka ah si weyn looga ciidayo munaasabadda Ciidul Adha waxaanu warbixino idinka haynaa qaabkii maanta looga ciiday magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa xubinta tiknoolajiyada ee toddobaadkan ee Clegna waxaanu idinku haynaa qodobo ay ka mid yihiin wiil yar oo lacag ku helay kadib markii uu adeega Instagram cilad ka saaray maxkamadda sare ee Kenya ayaa baabiisay natiijada doorashada madaxtinimada ee dhawaan ka dhacday dalkaasi maxkamaddu waxay ku tilmaantay natiijadaasi mid aan sharci ahayn waxayna go'aamisay in doorasho kale ay ku dhacdo muddo 60 maalmood gudahooda go'aankani waa mid taariikhi ah oo aan hore uga dhicin qaaradda Afrika wariyaha BBC-da Suhayba Maxamed Badqas ayaa goor dhaweyd warbixinta nooga soo dirtay caasimadda Kenya ee Nairobi go'aankan ma ahayn mid la filayay garsoorayaasha ayaa laalay natiijadii doorashada madaxtinimo ee dalkan ka dhacday horaantii bishii Agost waxayna sheegeen in guddiga doorashada aysan u qaban doorashadaasi qaab dastuurka waafaqsan go'aankan waxa uu guul weyn u yahay xisbiga mucaaradka This indeed is a very historic day. xaqiiqdii waa maalin taariikhi u ah shacabka Kenya iyo guud ahaan shacabka qaaradda Afrika waa markii ugu horeysay ee dimuqraadiyiinta Afrika ay maxkamad xukunto in la tuuro doorasho aan sax ahayn ee madaxweyne go'aankan laga gaaray madaxweynenimada waa mid taariikhi ah This is a president setting ruling. They are very historical. askartan gadaashooda waxa taagan taageerayaasha xisbiga naasa oo dabaaldegaya kadib markii ay ogaadeen in maxkamadda ugu sarreysa dalka ay riday xukun taariikhi ah kadib markii ay noqotay maxkamaddii ugu horeysay ee Afrikaan ah oo amarto in doorasho madaxtinimo dib loogu laabto 2 bilood gudahooda ayaa lagu qaban doonaa doorasho balse mucaaradka ayaa sheegaya in aysan ku kalsoonayn guddiga haatan jira inuu qabto doorashadaasi guddiga waxaa ka go'an in gudaha uu isbeddel ku sameeyo xanaanka anaga oo isku diyaarinayno doorasho cusub oo madaxtinimo oo ku dhacaysa muddo 60 maalmood gudahood xisbiga talada haya kuma qanacsana go'aanka maxkamadda madaxweynahana waxa uu sheegay inuu ixtiraamayo xukunkaasi malaayiin reer Kenya ayaa safaf galay oo u codeeyay ciddii ay rabeen 6 ruux ayaana go'aansaday in ay ka soo horjeedsadaan rabitaanka dadka deegaanka uu ka soo jeeda madaxweynaha taageerayaashiisa kuma faraxsana go'aanka maxkamadda balse waxa ay sheegayaan inay kalsooni ku qabaan inuu ku guuleysanayo doorashada madaxtinimo ee lagu celinayo Suhayba Maxamed Badqas BBC Nairobi haddaba go'aankan ay gaadhay maxkamadda ugu sarreysa Kenya muxuu ahmiyad u leeyahay waxaan su'aashaasi weydiiyay goor sii horeysay isagoo fadhiya stuudiyaha Nairobi Dr. Abdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Afrika go'aankani waa go'aan taariikhi ah waa markii ugu horeysay qaaradda Afrika ay ka dhacdo madaxweyne talada haya ee doorasho intuu ku guuleystay la yiraahdo doorashada ku guuleystay waxba kama jiraan waa markii ugu horeysay ay dhacday adduunyada waxay ka dhacday 3 wadan ay ka dhacday wadanka loo yaqaan yani Ukraine oo 2004 ay ka dhacday Maldives oo 2013 ay ka dhacday iyo wadanka Austria oo 2013 ay ka dhacday markii qaaradda Afrika halka waxa ka cad dadka inay ku kalsoonaadaan maxkamadaha cadaaladda maartay 5 sano soo dhaafay galamaha cadaaladda waxa lagu sameeyay reform ay lagu sameeyay waana tan keentay dadka inay kalsooni badan ku helaan oo marka yani ay aaminaan go'aanka maxkamadda sare ay ka soo baxda intii marka la jabhadayn lahaa ama dalka macnaha yani dagaal sokay ay ka dhici lahaayeen waxa kale oo Dr. Abdiwahaab weydiiyay saameyn noocee ah ayaa go'aankan ku yeelanaya guddidii doorashada ee doorashadan qabatay runtii yani maxkamadda sare waxay go'aamisay in doorashadii 2017 dalkan ka dhacday
ay doorasho aan waafaqsan dastuurka aan waafaqsan inay tahay taa marka waxay keenaysaa in lagu kalsoonayn nimankan micnaha tala yani guddigan doorashada qaban qaba in kalsooni badan lagu haysanin ayay taa keenaysaa laakiin mar uu hadlay Jubakati yani ninka guddoomiyaha ka ah يعني guddiga doorashada wuxuu sheegay inuusan iscasili doonin laakiin taa ma dhici doonto maxaa yeelay yani ururka mucaaradka iyo dadka yani civil society intaba waxay leeyihiin maadaama uu qabtay doorasho runtii aan sharciga waafaqsanayn kursi waafaqsanayn waa inuu meesha isaga ka baxaa si marka loo helo doorasho xalaal ah oo macnaha oo free ah fair ah oo credible loo helo marka faahfaahin dheeraad oo ku saabsan go'aanka maxkamadda sare ee Kenya iyo warar kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adoo ka galaya mobilkaaga bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta xujay gaadhaysa 2 milyan oo xaaji oo caalamka oo dhan ka yimid ayaa ka qayb qaadanaya dhagax tuurka shaydaanka ee ka dhacaya meel u dhow Maka waa wajigii ugu dambeeyay xajka oo 5 cisho qaata waxaa la shiiday gidaar loola jeedo inuu shaydaanka uu matalo marar hore ayaa goobtaasi dad isku jeedeen oo ay ku dhinteen 2015 waxaa ku dhintay dad gaadhaya 2,000 oo qof laakiin sanadkan wax shil ah ma dhicin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay fadeexad caalami ah in rabshadii ka dhacay booqashadiisa Mareykanka daraadeed 19 qof xeer ilaalinta Mareykanku dambiye ku soo ogto kuwaas oo badan ilaaladiisa madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in booliska Mareykanku ay ogolaadeen in argagixiso ay u soo jirsato in ka yar 50 mitir maamulka madaxweyne Trump ayaa doortay 4 sharikadood oo samayn doona muunad sabad ah oo gidaarka laga dhisay xadka Mareykanka iyo Mexico u dhaxeeya madaxweyne Trump ayaa fikirkan soo jeediyay si looga hortago dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka qandaraaska gidaarka yar ee tijaabada ah ayaa ku kacaya kiiba $500,000 muslimiinta adduunka ayaa maanta u dabaal degaya munaasabadda Ciidul Adha waxaanu warbixino sida loo ciiday ah idinka haynaa magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa aynu ka horeyno wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad oo warbixintan nooga soo diray halkan waa beerta nabadda bartamaha magaalada Muqdisho qoysas tiro badan oo kumanaan gaaraya ayaa halkan isugu yimid si ay ugu damaashaadaan ama ugu dabaaldegaan farxadda ciida weyn oo dad tiro badan ay halkan ka muuqanayaan caruurta ayaa ah dadka ugu badan oo farxadda ciidan qaadanaya waxa ay caruurta ku damaashaadayaan qalab iyo alaab loo diyaariyey oo si gaar ah halkan loogu diyaariyey caruurtu farxad ayay ku qaadanayaan maalmo aan soo marin sanadka intiisa kale ayay caruurtu ku qaadanayaan halkan waxa aanu la hadlaynaa qaar ka mid ah dadka yimid halkan isla markaana ku damaashaadayay ciid wanaagsan dhammaanna caruurtii oo dhan waad wadaa maanta waa sida ciidda magacaasa marka hore magacaygu waa Fuad Cabdullaahi Xasan farxadeeda lama soo koobi karo anigoo la socday ciyaalkii aan dhalay oo ku wada damaashaadayna beerta nabadda aad iyo aad aan u faraxsanahay ciidan waxaa moodaa ciid iga duwan inay tahay waa markii labaad oo ciyaalkii kula ciidaa beerta nabadda ayadoo ciidii hore ciidan iga duwan tahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ciidan kaga soo qayb galo waa maasanta ciid wanaagsan aan ku leenahay anagana dadka ma aha goobaha kaliya ay isugu imaanayaan beerta nabadda waxaa jira ilaa dhowr goobood oo kale oo magaalada Muqdisho ku yaala oo dadku ay doonaya ay ku damaashaadayaan caruurta sidaan hore u sheegnayba waa dadka ugu muhiimsan ciidan sida aadka ah uga qayb qaadanaya Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho magaalada Hargeysa ilaa xalay dadku waxay ku mashquulsanaayeen diyaar garowga ciida waxa warbixin nooga soo diray wariyaha iyaga Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad waa habeenkii xalay ahaa iyo bartamaha magaalada Hargeysa waa 12 habeenimo oo aan loo baran aalaaba in xilligan oo kale uu suuqu camirnaado caawase waa camiran yahay dadweynuhu waxay xilligan ay u joogaan inay iibsadaan adeegga ciidda barakaysan ee Ciidul Adha meel walba way tuman yihiin oo suuqa ka mid ah waxaana ay ka duwan tahay habeenada kale dadka qaar ayaa waagu ugu baryay iyagoo soo jeeda sidii ay u sugayeen ciidda barakaysan ee Ciidul Adha markii waagu baryayna waxay u dareereen tukashada salaada Allahu akbar kabeera walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila waxa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Hargeysa lagu soo kordhiyay
goobo magaalada duleedkeeda ah oo loogu talagalay in ubadku ay ku ciyaaraan maalmaha farxadaha. meel caruurta iyo dhalinyarada iyo kuwa maalintaas ciida ay maanta farxadooda ku muujinayaan. waxaa leedahay meeshii baabuurtii lagu tartamayay waa meel go karts dadku yiraahdaan. waxaad Ismaaciil Jaamac waxaan halkan ka salaamay hooyada iyo aabahay iyo abriyaashay cidii muuqayga magacayga garansaya iyo macallimiintayda. Iyo salaamaysaa. waxaan joogay 3 sano Hargeysa Soomaaliga oo bartay waxaan ka yimid Hargeysa inuu barak Maxamed baan idhahaa waxaan salaamayaa abtiga iyo adeerka iyo hooyaday iyo muxuu ahaa iyo abtiyaashay oo dhan. xagga wararka ciyaarahana weeraryahanka weyn ee Everton Wayne Rooney ayaa boolisku xidheen iyadoo looga shakiyay inuu khamri cabsanaa isagoo gaadhigiisa wada. gooldhaliyahan ugu weynaa Ingiriiska ayaa waxaa joojiyay booliska meel u dhow gurigiisa gobolka Cheshire. Wayne Rooney ayaa ah 31 jir toddobaadkii hore ayuu ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah ee uu ciyaari jiray qaranka Ingiriiska isagoo dib ugu biiray Everton oo ah kooxdii ciyaalnimadiisii uu ka soo baxay. wararka isreebreebka kubadda cagta ee adduunka waa koobka adduunka ee Faransiiska ayaa 4-0 kaga badiyay kooxdii weyneed ee Netherlands. Belgium-kuna waxa ay dhaliyeen guushii ugu weyneed kadib markii ay 9-1 ku garaaceen jasiiradda Gibraltar. maantana 9 ciyaarood ayaa la ciyaarayaa. kooxda koobka adduunka haysata ee Jarmalka ayaa iska hor imanayaan Czech Republic. Norway waxay la ciyaaraysaa Azerbaijan halka England iyo Maltana ay kulmayaan. imikana waa Jimce waa barnaamijkeeni tiknoolajiyada iyo toddobaadkan ee Click. waxaa soo jeedinaya Farxaan Maxamed Jimcaale. wiil finish ah oo 10 jir ah ayaa $10,000 lagu siiyey markii cillad uu ka helay applicationka Instagram. wuxuu helay qaab qoraalada dadka kale lagu tirtiri karo. wuxuu iminka ku gadanayaa lacagtaasi baaskiil iyo kombiyuutarro walaalihiisu uu iibinayo. waxaase la yaab leh in aad noqoto 13 jir in ay tahay si aad u isticmaasho Instagram. adeegga ayaa qirtay in dad caana loo dhacay oo xogtooda la jabsaday. iyadoo walaac badan oo dhinaca ammaanka internetka uu jiro ayaa qaar waxa ay rajaynayaan in aaladda quantum ay gacan ka geysan karto ammaanka internetka sanadaha soo socda. cad yar oo ka tirsan aaladdaasi ayaa isbeddel samaynaysa isagoo u eg sida ice cream qorraxdu ay dhalaalisay. marka haddii qofku uu u dhaco xogta isagoo wata furaha quantum suurtagal ma ahan in la qariyo in xogtaasi ay arkeen. cilmibaarayaal jaamacadda Washington ayaa sameeyey application cusub oo soo saari kara qaybaha cad ee hoose ee indhahaaga. haddii heerkiisu uu sarreeyo waa calaamad nooc ka mida kansarka. dadka isticmaala ayaa sawir ka qaada wejigooda iyagoo isticmaalaya ookiyaale iftiinka celinaya. Bill Screen waa raqiis kana sahlan tijaabada dhiigga waana sax 90%. farsamada muuqaalada qiyaaliga ah ayaa iminka dul maraya kuwii dijitaalka ah ee dunidan waxaana ay u soo socdaan mobilkaaga. Google ayaa bedelaysa softwarekooda AR ee Tangle yiraahdo sababtoo ah waxa uu ka xoog badan yahay aaladaha kale. mid malaayiin aalado ku shaqaynaya ayay keenayaan oo ay ku bedelayaan. waxaana ay la tartamayaan Apple oo iyana keentay mid cusub oo ku tusaya sida alaabta gurigaagu ay u eg tahay inta aadan gadan. waxa kaloo jira mid kale oo carruurtu ay ku ciyaaraan. ugu dambeyntiina caawa waxaan leeyahay muuqaaladan ha daawanin. haddaad meelaha dhaadheer ka baqato shalwo oo bood meel aan la ogeyn u bood. ninkan Maraykanka ah ee meelaha khatarta ah ka booda Chris Cunningham ayaa iska tuuray qarkaasi ku yaala jasiiradda quruxda badan ee Greega ee Santiatos. waa meel cajiiba. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyeyba waxaad kala socon kartaa boggayaga bbcsomali.com. barnaamijkeenna caawa intaasi ku dhan yahay waxaanu idin leenahay ciid mubaarak ciid wanaagsan nabadgelyo.